beesha Garigombe oo baryahan badbaadi-goob ku jirtay inay gacanta ku dhigto shaqsi ka soo bixi karo shaqada adag ee hortaalo wakiilka golaha hoose u matali doono degmada Buurdheer ee Wajeer South ayaa ugu dambeyntii maanta usha ku dhufatay oo u cimaamatay hawshaasi in uu ka soo bixi karo Cabdirashiid Aadan Xuseen oo lagu naanayso taajir inuu noqdo musharaxa calanwadaha beesha Garigombe gaar ahaan Rayda Abwey. Cabdirashiid Aadan Xuseen taajir waa nin dhalinyaro ah oo sanado badan ka agdhawaa shaxdajinta siyaasadda beesha Garigombe, shakina kuma jiro haddii shaqadaasi loo dhiibo inuu yahay nin ka soo bixi karo hawsha adag ee hortaalo. Cabdirashiid Aadan Xuseen taajir waa nin dhalinyaro ah oo ganacsato ah, waa agaasimaha ganacsiga hoteelada Urban Point ee magaalada Nairobi, waana milkiilaha shirkadda dhismaha guryaha kuwa oo loo yaqaano real estate oo ku yaalo magaalada Nairobi. waxaa hubanti ah Cabdirashiid inuu u muuqdo musharaxa gacanta ku dhigi doono kursiga tartanka adag loo gali doono doorashada 9 Agoosto ee foodo inagu soo leh oo ah wakiilka golaha hoose u matali doono shacabka ku nool degmada Buurdheer. inuu noo yahay MCA wixii maanta ka bilowda Buurdheer Ward waana la helaa insha Allah.